Asalaamu calaykum walaalahayga qaaliga ee kusoo dhawaada channelkayga with another video. Haddii ay igu cusub tahay walaal qaali magacaygu waa Taliso, channelka iga daawanaysa waa Taliso Cabdulaahi. Soo dhawaaw oo subscribe ii saar. Maantana waxaan niila sheegareynaa baasta iyo suugo zaid u macaan badan. Haddii aad suugada sidaa u samaysato waad ka helaysaa anaa ka hubo. Hadda waxaan ku haystaa halkan yaanyo iyo kabsar caleen iyo barbarooni oo saddex nooc ah ayaan soo jartay. Barbarooniga oo gaduudka ah, midka jaalaha ah iyo midka cagaarka ah. Saddexdaas barbarooni ayaan soo jartay. iyo yaanyo ayaan soo jartay sa arkaysaan. Hal mashiintan soo qaadanaya kulli halkaan ayaan ku soo shubayaa. Waxaan rabaa hal mar inaan isku soo shiido intaaneti. Zaid ma u soo shiidayo. Marka hadda waa kana halkaan ayaan ku wada shubanaya kadibna waan soo shiidayaa. si fiican ayaan isku soo shiiday zaidna ma u shiidan daqiiq ma rabo inaan ka dhigo. Marka hadda waa kana waa arkaysaan ma hadda birtaawi ayaan soo qaatay wax yar saliid ayaan ku soo shubay. wax yar markay soo karto kadib hal xabo tuun ayaan ku soo shubayaa. hal xabo tuun ayaan ku darsanayaa. intaa kadib waxaan ku soo darsanayaa basashi hal xabo basal oo basasha cadaanka oo soo jarjaro si yaris oo soo jarjaro ayaan ku soo darsanayaa. in basal aad rabto aad isticmaali kartaa. kadibna wax yar ayaan shiilayaa basasha. kadib waxaan ku soo darsanayaa xawaajiyaasha adiga waxaa jeceshahay oo haysato ayaa ku carafsanaysaa. waxaan ku soo darsadaa aniga garam masala iyo curry powder. waxaan ku darsanayaa huruud. waxaa kaloo ku darsanayaa paprika ama barbarooniga shiidan sida aad taqaano iyo filfil intaas ayaan ku darsanayaa. intaas ayaan ku soo darsanayaa. haddana filfish ayaan ku darsanayaa. marka hadda filfish marka aan ku soo darsado intaas ayaan isku shiilayaa wax yar xawaajiyaasha iyo basashi ayaan isku shiilayaa wax yar. wax yar ayaan siinayaa. kadibna waxaan ku soo darsanayaa hilibkaan isticmaalayo waa hilib geel oo si yaris ah u soo jarjaray ayaan ku soo darsanayaa. Adi hilib alaala hilibka jecesha ayaa ku darsan kartaa hilib geelkaas ayaan isticmaalaan ku soo darsaday. kadibna xawaajiyaashii iyo hilibka ayaan rabaa si fiican inaan iskugu walaaqo. maasha Allah tabarakallah zaid ay u macaan badanta suugada haddaa sidaa u samaysato. aad iyo aad ayaad uga heli doontaa adinkana soo tijaabiya. haddii aad soo tijaabisaan sida ay kugu soo baxdo oo sidaan aad u samaysato igula soo wadaa qaybta commentiga. videogana inoo like gareeya sii share gareeya si walaalo badan ay uga faa'iidaan. anigana dhiirigelin ayay ii tahay. marka walaalahayga qaaliga waa kaasa marka aan sidaas aan sameeyo kadib wax yar ayaan daboolayaa hilibka. marka waa kaasa wax yar ayaan rabaa inuu soo karo oo hilibka soo karo. hilibka marka yaris aa u jarjartidna waqti badan ma u baahna just waqti yar ayuu ku karayaa. maasha Allah tabarakallah waa arkaysaan biyo ma ku darin just hilibkii waaye. asiga ayaa biyo soo yeeshay. wax yar ayaan hilibkii aan ku soo laabtay kadibna dabool ayaan iska saaraa mar kale waxaan rabaa biyaha inuu soo dhameysto. marka waa kaas kadibna waxaan tusaa waxyaabaha kale aan ku soo dari doono. hadda waa kana mar kale ayaan ku soo laabanay hadda sida aan ka rabno waaye. waxaan soo qaadanayaa hadda waxyaabihii qudaarta aan isku soo darsanay oo isku soo shiidnay ayaan soo qaadanayaa kadibna waan ku soo darayaa. waa arkaysaan zaid daqiiq ma ka dhigin waa nii sheegay. marka sidaan inaad ka dhigto waa zaid daqiiq ha uga dhigin. sidaan ay ku macaan badanta suugada marka aad samaynayso yaayada zaid ha u shiidin iyo qudaarta. marka wada waa kaasa walaalahayga qaaliga ah. hadda markii aan ku soo daray just wax yar ayaan waqti yar ayaan siinayaa mar kale. waa kaasa walaalahayga qaaliga daboolka ayaana iska saarayaa. caraftiisa ma laga sheekeyn karo zaid ayuu u soo carfayaa. waxaan ku daray hadda tomato paste ama yaanyo shiishiid oo wax yar 2 qaando ayaan ku darsaday. waa kaasa kadibna mar kale ayaan isku walaaqa. kaas markii aan isku qaso kadib daboolka ayaan iska saarayaa. dabkana zaid ha ugu dheereen dhexaad u geyso. dabka oo zaid markii loogu dheeray cuntada macaan ma naqanayso dadka marka dabka aan dhexaad ayaa u geeyaa marka aan karinayo. marka hadda just waqti yar ayaan siinaa daboolka marka aan iska saaro kadib hadda waa kana waan ku soo laabanay. maasha Allah tabarakallah waa arkaysaan mar kale ayaan ku qasayaa.
ما شاء الله تبارك الله wax yar kadib waa jagareynaysaa waa fiirinaysaa wax yar waa kadib waxaan ku soo darsaday hadda cusbo ما شاء الله تبارك الله adiga qiyaasta dhanaanka adoo ku xiran qiyaastiisa daaratu maraq digaaga ku darsanaysid waa joyskaaga marka aan cusbo ayaan ku soo darsaday wax yar cusbo ayaan ku soo daray cusbada markaan ku soo daray kadib waxaan soo jarjartay baradho iyo karooto iyo zucchini ayaan isku soo jarjaray soo baradhada ha ka badin suugada baradhada marka aad suugada ka badisid macaan ku noqonayso always baradhada waa lagu yareeyaa marka suuga aad karinaysid just wax yar ayaa ku darsanaysaa hadda markaas zaaid ay macaan u noqonaysaa laakiin si doonto aa u karisid hadda baradhada suugada aad ka badisid qashay ka noqonaysaa hadda waxaan ku soo darsanayaa wax yar oo biyo ayaan ku darsanayaa kadibna dabool ayaan iska saarayaa halkaas ay igu soo karaysaa ما شاء الله تبارك الله زايد ayuu soo carfaysaa suugada jikada ma ka joogi karto marka aad karinayso soo marka hadda waxaan sameeynaa daboolka ayaan iska saarayaa kadibna waxaan isku soo laabanaynaa marka ay soo karto dhinaca kale waxaan sameysanaynaa baasto ayaan u karsanaynaa suugada hadda waa arkaysaan marka aan ku soo laabanay hadda way soo karaysaa baradhada wax ma u dhino soo dabka ayaan dhinaca kale ayaan saaranayaa dabka ayaan u gaabinayaa haddana waxaan karinaynaa baastadii waxaan karsanayaa baasto oo fiina ayaan karsanayaa adi waxaa jeceshahay macaroni jeceshahay baasta balbalaarta aad jeceshahay adi waxaa jeceshahay u karso soo wax yar cusbaan ku soo daray biyo baasta waa wada karinayaa kadibna waa kana hal kiilo ayaan karinaa baastada nus kiilo ayaan ku soo shubaa nus kiilada kalena waan ku soo shubayaa soo hadda waa kana cabaar markii ay kartay waqti badan ma u baahni just waqti yar ay ku karaysaa baastada waa wada kasaynamo soo marka walaalahayga qaaliga baastada hadda sidaas ay noogu karta diyaar inoo waay dhaqsi ayaan ka dejinayaa hadii kale baastada zaid haday kaaga bislaato way iska qabsanaysaa marka hadda waa kana biyo ayaan ka soo miirayaa baastadii ما شاء الله تبارك الله walaalahayga qaaliga suugadana waa kana sidaan ayaa ku soo baxday just dabka ayaan u gaabiyay wax kale ma ku darin ما شاء الله baastadana halkaan ayaan ku soo diyaarsanay salad ayaan soo sameysanay basbaas qumbiya aan shalay aan sameeyo idin soo galiyay ayaa halkaan ku soo qaato ku haystaa ما شاء الله تبارك الله walaalahayga qaaliga aad iyo aad ayadna u mahadsantiin sida quruxda badan oo igu xirantiin mar walba igu soo dirtaan fariimayna quruxda badan aan idinkaga mahad celinayaa haddana waa kana suugadii ayaan baastadii ayaan ku soo darayaa ما شاء الله زايد ayuu macaan badan tahay suugadan iyo baastadanbo ما شاء الله تبارك الله marka wax walba aad jeceshahay ku cuni kartaa suugada hadda sidaa u sameysato hadda dusha waxaa uga soo shubayaa wax yar oo yogurt blank oo dhanaanka ayaan wax yar korka uga soo shubanayaa waxa kale oo ku soo darayaa wax yar oo kabsar caleen ayaan dusha uga soo shubanayaa ansalaato ayaa halka igu diyaarsan basbaaskii ما شاء الله تبارك الله walaalahayga qaaliga soo dhawaada mar kale suugada hadii sida u sameysato ciyaalkaaga hadii barbarooniga sida kuwayga camal ay necban yihiin barbarooni ina ku darto dhan ma ka dareemayaan hada inta barbarooni aan ku darana waa arkayseen soo saas darteedana ayaana kor uga darin barbarooni iyo basal kor ma uga daro sidaas ayaa ugu kariyaa markay ciyaalku waxay necab yihiin oo aragtid sidaas ayaa loogu dhex qariyaa ayaa kana ma ogo ما شاء الله تبارك الله waana ku cunaa qaaliga dhiirigelinta waa xaqiina hadii uu fiidiyowga maanta ku cajaab galiya like inoo saar sii share garee walaalahaaga kale si ay uga faa'iidaan hadii aad igu cusubtaa subscribe dhac ku sii banta qurux badan qaybta commentiga noogu reeb waxyaabaha jeclaan lahayd inaad ii soo galin waa idin soo galinayaa igu soo qoro qaybta commentiga insha Allah video kala ku kulmi doono waxaan rajaynayaa farxad iyo caafimaad dhamaantiina wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh